السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan nagala socotaan waa Xabiib channel annagoo bahda dadaal media waxaan leenahay habeen wacan. halkan waxaa idinka soo jeedin doonaa anigoo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed kuna magac dheer Cabdiraxmaan Cadde. waxaa idinka soo jeedin doonaa dhowr sheeko oo majaajila ama qosol iska bilaabana koobaad waxay noo dhawsaa bari waxaa jirtay tuulada waxaa xukumi jiray boqor ay dadkiisu jecel yihiin ciidan badanna ilaaliyo ayaa xukumi jiray. haddaba habeenada kamid ayaa waxa soo dhacay mas aad u halis oo aad u weyn. kadibna intuu maskii ku dhuftay suntii ama dilay ayuu baxsay keentana galay. ciidankii baa daba cararay si u dilaan oo uga argooyaan boqorkoogii fiicnaa ee xukumi jiray. way waayeen waxay eryadaanba maskii waxa ka soo horbaxay nin socota oo ku socda tuuladan ninka ka soo dilay tuulada ka dambaysa nin ku socda. ninkii uu iswareystaanba ninkii wuxuu sheegay inuu tuulada ka dambaysa u socdo. kadibna maskii intuu ninkii la heshiiyey oo la saaxiibay ayuu ku yiri haddaba iqaad oo tuulada u socotidige qolbay eryana inay dilaan bi rabaan iga badbaadi. ninkii wuxuu ku yiri sideen ku qaada kaasuguri meel lagu qaado laguma hayo jawaanna ma sito waxna ma sito. kaasuguri cumaamad baad igan xirane qoortaada isku duubaya kadibna cumaamadii igu dad saasaan ragga ku dhaafnaa markan tagna tuuladii aad u socotayna waan ka degayaa saasaan ku kala nabad heleynaa halkaasaan ku kala harana. ninkii waa aqbalay waxay soo raaceen waxay socdaanba waxa ka horimid colkii diiday maska. ninkii socotadaha ay colkii weydiiyeen waxayna ku yiraahdeen war wax mas halkan sii socday ma aragtay. wuxuu naga soo diray boqorkeegii kaasuu ku yiri may ma arag mas inta soo socday anigu wax mas ma arag. ninkii wuxuu soo socday tuuladii markuu dhaafiyay uu tuuladii u socday u gaaray oo maskii ku yiri iga daga aniga soo gaarsiiyay. maskii waji kaluba la soo baxo wuxuu ku yiri sideen kaga daga kaamaba dagayde. markaasuu ninkii ku yiri war maynaan ku heshiin markan tuuladan gaarnay iga dagtid. markaasuu ku yiri al kaama dagay anu si walba ha noqoto kaama dagayo. haddaba ninkii baa ku yiri qof noo gar qaaday nooge. waxay u tageen diinkii bay u warameen gartoodii mid walba gartiisa u waramay. diinkiisu ku xukumo garan waayay wuxuu yiri anu nima xukumi karo nimana gar qaadi karo horay dhaafa qof kale iskula taga. si uu socdeen waxay iskula tageen ugu dambeyntii dacwadan garanna khiyaamadeeda. dacwadii waxay ku yiraahdeen nakaa xukum oo noo gar qaad. kaasi dacwadii ku tiri bal mid walba gartiisa sheegto. kaasi baskii waa siri hadal oo gartaa sheego. kaasi ku tiri joog soo deg horta nin walba goonidiisa u istaago oo goonidiisa isku taago suu gartiisa u sheegto. markii maskii saa ugu soo degay uu dhulka soo istaagay ninkiina dhulka istaagay ay kala madax banaanaadeen ay dacwad ku tiri saasaan igu gar qaaday saasaanad ku kala madax banaantiin adna ugaarsi doono adna halka ku socotay tag. sheekadu intaasi nagu dhantay. waxaan ila socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed. saasaan ku kala nabad helena. halkeen ka soo bilaabay